waalid way fududahay caruurtu inay ku adeecaan. They can obey you. Su-aashu waxa weeyaan labo wado ayay kugu adeecayaan, through fear or through connection. Inay kaa cabsanayaan oo saa kugu adeecaan, iyo in adeecidoodu ay tahay mid aad isku xidhantiin ood kasbatay. farqiga u dhexeeya labadan waa maxay? Adeecidda cabsidu ay keento in yar bay socotaa, laakiin adeecidda isku xidhnaanta iyo maalgashiga aad qalbigooda maalgashatay, connection ku timaada, lifetime bay socotaa, cimrigooday socotaa. Markay guursadaan ay kaa guuraan, markay magaalo kale u guuraan, weli way socotaa. middan ku dhisan cabsida waxay socotaa inta adiga ay kaa rabaan xaqal ciidka, inta adigu aad tahay ATM mashiinkoodii, inta adigu aad biilkooda bixinayso, iyo inta adigu aad iskuulka ka soo qaadayso ee tahay Uber driverkooda. maalinka ay helaan drivers license-kooda, paycheck u horeeyana ay helaan, iskuma xidhmaysaan. adeecidda marka ku dhisan through fear, cabsida, intaasay ku ekaataa, ma waarto. laakiin adeecidda ku dhisan qalbigoodaad maalgashatay, cilaaqaad iyo jacayl iyo wada sheekaysi, waqti badanood gelisay, oo uu ka dhambalmayo qur-aanku miduu inoo sheegay ee ahayd yaa bunaya yaa abati, ilmahaygaan jeclaayo, aabbahaygaan jeclaayo. adeecidda noocaasa waxay socotaa lifetime, cimrigooda. su-aashu waxa weeyaan sideen rabnaa inay inoo adeecaan? wadadeen rabnaa in ay nagu adeecaan? janaalka Waalid Legacy kala soco stepska iyo tallaabooyinka aad qaadayso waalidow, si ilmuhu ay noo adeecaan adeecid socon doonta cimrigooda, oon ku ekayn inta ay nala joogto. fadlan janaalkan saad u hesho muuqaalada, subscribe dhaha, walaalaha muslimiintana la sheer gareeya. wassalaamu calaykum waraxmatullah.